sida ay qabaan taariikhyahanadu kumanaan sano ka hor taariikhda miilaadiga waxa ay ahayd markii qabaa'il xaamiyiina oo xoolo dhaqato ah ay ka soo tallaabeen badda cas waxay degeen waqooyiga dhulalka hadda loo yaqaano Itoobiya xeebaha Eritrea iyo bariga Suudaan qabaa'ishan oo bahwadaag la ah Soomaalida ayaa la rumaysan yahay in ay asal ahaan ka soo hayaameen burleyda Qowqaasiya oo ah dhul joog sare leh una dhaxeeya badda madow iyo badda Kasbiyaanka sababta keentay hijradaasna waa mid ilaa iyo hadda aan cadayn inkasta oo qabaa'ishan ay ahaayeen xoolo dhaqato sidoo kalena aysan ilbaxnimo ka samayn dhulkii ay deganaayeen haddana waxa ay isir wadaag la ahaayeen ilbaxnimooyinkii Kuush iyo Nuubiyiinta kuwaas oo ka hana qaaday dhulka maanta loo yaqaano Suudaan waana ilbaxnimadii uu taariikhyahankii weynaa ee Herodotus ku xusay buuggiisa taariikhda The Histories kaasoo uu ku sheegay Itoobiyaankii cimriga dheeraa 3 ilaa 800 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga waxaa mar kale badda cas ka soo tallaabay qabaa'il socoto ah kuwaas oo ka soo hayaamay gobolka Maghrib ee dalka Yemen hijradan waxaa sabab u ahaa dumistii uu dumay biyo-xireenkii weynaa ee Maghrib iyo daadadkii ka soo rogmaday waana qisada uu Qur'aanku sheegayo ee ku soo aroortay suuratu Saba qabaa'ishan oo saamiin ah waxay saldhigeen dhulka joogga sare leh ee waqooyiga Itoobiya si la mid ah xaamiyiintii iyaga ka soo horeeyay waxaana ka mid ahaa qabaa'ishan hayaanka ku yimid Xabashida Tigreega iyo Guraagaha si ka gedisan xaamiyiintii ay dhulka ugu yimaadeen oo ah xoolo dhaqato qoladan dambe waxa ay ahaayeen beeraley waxayna ka yimaadeen gobol ay ka jirtay ilbaxnimo iyo wax soo saar ku salaysan beeraha markiiba waxa ay isku fidiyeen dhulkii sare ee ku wanaagsanaa wax soo saarka wax yar kadibna waxa ay noqdeen bulsho isku filan taasoo u fududeysay in ay dhidibada u taagaan dawlad iyo nidaam adag oo kala haga bulshada waxay dhiseen boqortooyadii la dhihi jiray Aksumed oo saldhiggeedu uu ahaa magaalada Aksum magaca Aksumed ayaa loo aqoon jiray magacii hore ee boqortooyadii ka talan jirtay dhulkaas kaas oo waqti dambe isku bedelay magaca Abyssinia oo ah magac ay Laatiinku dhawaaqa ka xumeeyeen oo la macno ah Xabasha ama Abasha markii ugu horeysay ee loogu yaro dhulkan magaca Itoobiya waxa uu ahaa bilowgii qarnigii 20aad Itoobiya oo ah kelmad Greek ah macnaheeduna yahay wajiyadii gubnaa waxa asal ahaan loo aqoon jiray dhulkii ay ka talan jirtay boqortooyadii iyo ilbaxnimadii Kuush waana dadkii uu Herodotus ku sheegay inay ahaayeen kuwii ugu quruxda badnaa ugu cimriga dheeraa uguna dahabka badnaa ee uu arkay inkasta oo ay jiraan dad ku dooda in diinta Yuhuudda ay horay u soo gashay dhulkan ka hor intii aysan masiixiyadu soo gaarin ama xitaa ka hor imaatinkii sabaa'iyiinta haddana xaamiyiintii iyo sabaa'iyiintii hayaanka ku yimid midkoodna ma uusan lahayn wax diin ah marka laga reebay inay ahaayeen mushrikiin asnaamta caabuda sida laga soo xigtay baaritaano taariikheed oo laga sameeyay magaalada Aksum iyo agagaarkeeda si kastaba ahaatee waxaa la rumaysan yahay in bartamihii qarnigii 4aad ay masiixiyadu soo gaartay boqortooyadii Aksum waxayna u badan tahay in ay ka soo gashay dhanka Masar gaar ahaan magaalada Alexandria waxaa jirta qiso la wariyo oo sheegaysa in diinta masiixiga ay ku fidiyeen boqortooyadan 2 wiil oo walaal ah asalkooduna uu ahaa Greek kuwaas oo ka qidmeyn jiray aqalka boqorkii Aksum ee Esana kadib qaadashadii diinta masiixiga ee laga qaatay aqalkii boqortooyada waxaa la amray in dhammaan dadka lagu xukumo in ay qaataan masiixiyadda madhabka Yacquubiga ayuuna noqday midka ka hirgalay dhulkii Xabashida maxaa yeelay Masar ayaa laga haystay madhabkaas waxaana magaalada Alexandria looga soo diri jiray baadari noqon jirayna midka ugu sareeya diintooda marka uu dhintana mid kale ayaa laga soo diri jiray isla Masar caadadaasna waxa ay ahayd mid aan isbedelin xitaa markii uu islaamku la wareegay Masar hawsha ugu weyn ee uu baadarigan qaban jiray waxa ay ahayd caleemasaarka boqorka cusub haddii uusan baadariga caleemo saarinna sharciyadu boqorku waxa ay ahayd mid aan ansax ahayn Aksum waxa ay noqotay dawlad masiixi ah oo si weyn looga yaqaanay caalamkii kale ee masiixiga gaar ahaan Roomaankii reer galbeedka iyo kuwii barigaba
boqortooyadii Aksum kuma aysan ekaan dhulkii xabashida ee waxa ay u tallaabtay jasiiraddii Carbeed waxayna qabsatay Yemen oo ay xukumi jireen ximyariyiintii waxayna xukunka ka tuureen boqorkii ximyarka ee Diinawaas waxaa la sheegaa in qabsashadii ay qabsadeen Yemen ay ka dhalatay kadib markii ay sidaas ka codsatay dowladdii Byzantine oo ahayd Roomaankii bari loogana talin jiray Constantinople si ay ugu heliyaan masiixiyiintii reer Najraan kuwaas oo ciqaab iyo cadaab ba'anba ku hayay boqorkii ximyarka waana qolada ay ku soo arortay suuratul uqduud ee lagu guri jiray godadka naarta laga soo bilaabo aasaaskii dowladda waxaa talada hayay ilbaxnimadan iska lahaa qabaa'ishii Sabaa'iyiinta ee ka soo haajiray Yemen faafitaankii masiixiyaddu waxa ay sababtay in diintii ay soo galaan taladiina ay wax ku yeeshaan shucuubtii dhulka loogu yimid qabiilka Agowga oo tiro iyo tayaba lahaa ayaa noqday dadkii masiixiyadda qaatay markii dambana taladii dalka la wareegay Agowgu waxa ay ahaayeen maguurtadii dalka loogu yimid oo ahaa xaamiyiin waxayna dhiseen dawlad sal ballaaran sanadkii 900 waxayna talada hayeen ilaa laga soo gaaro 1270kii waana qoladii ugu horeysay ee dawladnimada ku fidiya dhulka hoose ee Itoobiya maxaa yeelay iyaga ka hor xukunka xabashidu waxa uu ku koobnaa dhulka sare ee Tigray iyo Eritrea qoyskan waxa ugu magac dheeraa boqorkii lagu magacaabi jiray Gabri Meskel Lalibela kaasoo dhisay kaniisadda Lalibela oo ah halka ay u xaj tagaan masiixiyiinta Itoobiya waa kaniisad ka samaysan buur la qoray oo loo qoray sidii mactabkii waana astaanta Itoobiyada maanta muslimiintu waxa ay soo gaareen dhulka xabashida ka hor inta aanu islaamku gaarin Madiina waana hijradii koobaad iyo hijradii labaad oo ay saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tageen dhulkii xabashida kadib markii ay u adkeysan waayeen ciqaabtii ay ku hayeen Quraysh oo xilligaas ah mushrikiin hase ahaatee ma jirto cid si dhaba u xaqiijin karta in saxaabadu halkaas diin ku fidiyaan iyo in kale ama in ay uga tageen wax mujtamac ah oo islaamka u nasab sheegta waxaase la isku raacsan yahay in meeshii ugu horeysay ee mujtamac islaami ah oo ka samaysmay ay ahayd jasiiradda Dahlaak oo hadda ka tirsan Eritrea mujtamacaas waxa uu ka koobnaa askar uu soo diray amiirkii muslimiinta Umar bin Khadaab radiyallahu anhu kadib markii burcadbadeedda xabashidu caqabad ku noqdeen isku socodkii badda cas wixii intaas ka dambeeyay diinta islaamku waxa ay si tartiib ugu fidaysay geeska Afrika iyadoo xagga xeebaha ka soo galeysay markii xukunkii khilaafadu ay la wareegeen qoyskii Umayyiinta ayna dhaceen dagaalo waaweyn oo ay xukunka ku adkeysanayeen waxaa bilowday hayaan iyo hijro ay sameynayeen cid walba oo xukunkooda ka soo horjeeday sida uu qabo taariikhyaankii weynaa ee Xaafid al-Maqrisi noolaana qarnigii 14aad ee miilaadiga dadyowgii ugu horeeyay ee u soo haajiray dhinaca xabashada waxa ay ahaayeen qoyskii reer Bani Haashim gaar ahaan Uqayliyiintii kuwaas oo degay halkii loo aqoon jiray Jabara oo ku taalay xeebaha Eritrea waana qoyskan cid aas-aastay dawladdii Jabara oo ay iska lahaayeen Jabartiyiintu markii dambana isku bedeshay oofaad qarnigii 13aad ugu dambeyntiina noqotay boqortooyadii Cadal sidaas si lamid ah waxaa dawlad laga aas-aasay gobolka Shaawo oo ah halka ay hadda ku taal caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa waxaana dawladdaas aas-aasay muhaajiriin ka soo haajirtay dhulkii barakaysnaa kuwaas oo ahaa qoyskii reer Maqsuum ee uu Khalid bin Waliid ka dhashay islaamku waxa uu si weyn ugu faafay dhulka hoose ee xabashida ilaa dawladihii ama saldanadii islaamku gaareen 7 saldanadood dhulkan ayaa caalamka islaamka loogu yaqaanay bilaadu Saylac maxaa yeelay Saylac waxa ay ahayd marsada ugu weyn saldanadihii dhulkaas ka talin jiray islaamkana fidin jiray waxa ka mid ahaa Jabara Shaawo Oofaat Dawara Baali Hadiya iyo Cadal sanadkii 1270kii xukunkii dhulka xabashida waxaa la wareegay qoyskii Suleymaaniyiinta boqorkii ugu horeeyay ee talada qabtay waxa uu ahaa Yakuunu Amlaakh iyo qoyskiisuba waxa ay samaysteen dacaayad ay rabeen in ay dalka ku xukumaan waxa ay sheegteen in ay yihiin tafiirtii Nabi Suleymaan calayhi salaam iyo boqoradii Balqiis ee reer Saba arintaas waxaa qayb lixaad leh ka qaatay baadarigii ugu sareeyay diintooda oo lagu magacaabi jiray Taqla Haymanuut sababta arinkaas loo sameeyay waxa ay ahayd in boqorkan cusub uu ahaa nin aan taariikh wanaagsan ku lahayn mujtamaca dhexdiisa waxa uu ahaa burcad dadka dhici jiray iyo dhigyo cabcaana
waxaa kale oo la sheegaa in uu walaashiis qabi jiray. dhanka kale waxa uu xoog kula wareegay talada isaga oo dilay boqorkii ugu dambeeyey ee qoyskiisa Guuyiinta. haddaba si loo sharciyeeyo falkaas aan ku qomanayn diinta Masiixiga oo ah in la dilo boqorka oo agtooda ka ahaa axad barakaysan ayaa sababtay in yakuun amlaaq qoyskiisa iyo qowmiyadda xabashaduba loogu abtiriyo Nabi Suleymaan calayhi salaam si aan loogu loolamin xukunka. qoyskan waxa uu ka talinayay dhulka xabashida ilaa laga soo gaaro 1974 markaas oo kii ugu dambeeyey oo ahaa boqor Xeele Salaase laga tuuray talada. sida ka muuqata dhalashada qoyskan waxa ay samaysteen nasab diimeed waxa ayna isku magacaabeen in ay yihiin ilaaliyayaasha iyo fidayaasha diinta Masiixiga. waxay bilaabeen olole wacyigelin oo dadka lagu nacsiinayo diinta Islaamka iyo Masiixiyaduba wixii ka horeeyay qoyskan waxa ay si nabad ah ugu wada noolaayeen dhulka waxaana ka dhaxeeyay xiriir wanaagsan. Islaamka ayaana u faafi jiray si nabad ah mana jirin wax khatar ah oo uu ku ahaa boqortooyada xabashida. sidoo kale Suleymaaniyiintu waxa ay bilaabeen in dadkii cawaanta ahaa qasab looga dhigo Masiixiyiin gaar ahaan qabaa'ishii xaamiyiinta oo uu agowga ugu weynaa. waxay bilaabeen dagaallo iyo weerarro waaweyn oo ay ku qaadeen saldanadii muslimiinta. dagaaladan ayayna Suleymaaniyiintu wadeen ilaa laga soo gaaro bilowgii qarnigii 15aad xilligaas oo ay ahayd markii ay xididada u siibeen dawladdii Ifaat ayna dileen suldaankeedii Sacaadudiin. goobta suldaanka lagu dilay waxa ay ahayd magaalada Seylac oo sidoo kale ahayd meeshii ugu dambeysay ee dhulkii saldanada waana xilligan markii ugu horeysay ee la arko magaca Soomaali oo qoran. wixii xilligaas ka dambeeyay Soomaalida ayaa la fadhabar u ahayd dagaaladii wax iska caabinta ee dhexmari jiray dawladdii Cadal iyo Xabashida gaar ahaan halgankii Axmed Gurey. la soco qaybta xigta oo aan ku soo qaadan doono sidii loo aasaasay dawladdii Cadal iyo dagaaladii uu hogaaminayay Imaam Axmed Ibraahim Al-Qaasi Imaam Axmed Gurey. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa mowduuceeni maanta. إن شاء الله أنت مقالك حيوك كل مدونو نبتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.